الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاشين جوار حسين halkan nagala socotaan waa channelkeena Jawaar Xuseen inoo maamusho waxaan rajaynayaa in caafimaad qabtaan sida aniga anoo caafimaad qabo Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadka inoo ziyaadiyo Allah subhanahu wa ta'ala inteeni xanuunsan xanuunkooda caafimaad ha ugu bedelo Allah subhanahu wa ta'ala inta xanuunka sariirta la saaran xanuunka ha ka dulqaado dambi dhaafna ha ugu dhigo Allah subhanahu wa ta'ala intaan u badhaysan u badbaariya ku arsaaqo Allah subhanahu wa ta'ala intaanay shaqo haysan shaqo wanaagsan ay ku farxaan Allah subhanahu wa ta'ala ha ku arsaaqo inta murugaysan murugada Allah subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado Allah subhanahu wa ta'ala dalkeena hanoo hagaajiyo aamiin ya rabbal alamin adduunkan wuxuu yahay malahan anaga isku dhajino qof walba inuu ogaado adduunya waxay tahay inaysan jirin saakay gabar arooskeeda la diyaarinayay geeriyootay Allah subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto Allah subhanahu wa ta'ala qabrigeeda ha u waasiciyo aamiin ya rabbal alamin qisada maanta noo haayo haddii ay ubad la'aan ku hayso qisadan dhageyso haddii ay ubad ma dhali doontaa ma dhalaysid miyaa ka fikiraysid qisadan dhageyso haddii adi wax qaldan oo ku fikiraysid qisadan dhageyso insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka fahmi doono hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo abaayadan waxay leedahay waxaan ahay doctor nisa qof walbo bili aadana mawhib u leeyahay anigoo kale marka yaraa waxaan dhihi jiray waxaan jeclahay inaan noqdo professorad oo meel aan ka muxaadareeyo meel aan ka hadlo يعني سبحان الله مركا الله سبحانه وتعالى وحول بوناجا وكاشتيد الله سبحانه وتعالى وكو صورة الجليا قف والبن وحو كوها منايو إن هدي وحو ناكسيهن إلهي سبحانه وتعالى وصورة الجلينا مركا بايدا وحي لا ذهي وحو كوها منايو كوفي كده إن النقطة دكتورة النساء دكتورة هبينكا إن الله مستعان لين هدي نقطة قفك هدي إن الله مستعان oo ilmaha ka soo daaheen hadii tiyub uu xiran yahay hadii walaada ay noqoto dhalin haday noqoto waxyaabahaas aad mawhibkaas yani waxay dhahday hamigaas aan lahaa fa alxamdulillah waan bartay dhahday waxyaa bartay waxaan aad u jeclaay dhahday in aan naagaha dhaliyo waa dhalin jiray dhahday anigoo farxad dareemayo waxaan dhalin jiray anigoo farxad dareemayo anigoo sida rabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ii yeelo aan dareemayo waxay dhahday aan dhalina waliba dhalinta kaliya ugu mahiraay dhahday inaan dhaliyo ilmaha aan la socdo xaaladooda caafimaad heeray koraan waxyaabahaas heeray soo weynaadaan markaana 3 jir 4 jir soo gaaraan aan la socona ilmaha marka oo loo xaflad iyo waxaas ay u dhigayaan hooyooyinkooda abadan laanteeda ma dhigan jirin way wici jireen meesha aan tagi jiray ilmaha la isku keena badi waxay noqdaan ilma aan aniga dhaliyay runtii Allah musta'an waxa la kala garan weyna qofka hooyo u ah ayagoo in badan oo jacayl iyo xadaaf aan siiyay leedahay sidii waxay ahaataba oo anigu aad u faraxsan hooyo walba aan dhalinay dhahday aad ugu faraxsanahay ilaa iyo uurkeeda ilaa iyo dhalintaankeeda ilaa cunugaas uu ka koro dhan ba aan la soconaay hooyooyinkan aad ay jecel yihiin dhahday ilmahana aad ay isku jeclaysiinay dhahday fa alxamdulillah intaas oo dhan fadliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku dhacday dhahday waxay sidaas ahaataba waa la soo doontay dhahday gabar walba waxay u joogtaa maalin in la soo doonto sorry codkayga wali wax waa lagu jiraa raal noqda marka gabar walba waxay u joogtaa ay dhahday maalin in la soo doonto maalin in Allah musta'an gurigooda ay ka tagto guriga oo zoojkeeda ama ninkeeda ay aado fa alxamdulillah wala soo doontay wala guursaday gurigeyga aaday ninkeyga alxamdulillah ay dhahday sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay uu yahay laakiin hadan sida aniga rabay uu noqday nin naxariis badan wanaag badan diin ku wanaagsan wax والبلة بقيل أنا هين طبعا قبل ويكون هامسان النوع أو بشاش إلى شيء كيستا إلى هلا مر والبقي دريمة حنون كي دريمة فرحة دي دريمة ونقطة هذا أسكو فرح سنين waxaa isqabnaba isqabitaankeen waxaa kasoo wareegitay dhowr bilooda kasoo wareegitay wax ubada ilaahayna ma siinin asigoo ogeena waxaan aaday dhahday doctor si aan xaaladeeda u damino iyo waxyaabaha iga qaldan aan soo ogaado doctorkii markaa aaday waxaa la ii soo sheegay in aan waxba qabin ukumadeyda wax walbo saliim ay yihiin tiyuubkeyga meel walbo marka mar walbo oo dadka waxa daba soconaysid waxyaabo badan aad baranaysaa waxa bartay
tayuuba bartay allah mustacaan kuwa oo uurka geeya allah mustacaan waxaa bartay ilaahay waa ku rooyahe biyaadka ukumada inay waxay yihiin waxyaabo badanaa bartay almuhim waxa waqti aad gelisid waa baranaysaa iskuul ma kasoo baranin fa tayuubkayga inuu caadi yahay biyaadkayga ama ukumahayga ay caadi yihiin wax walba caadi ay yihiin oo saliim aan ahay waxba iga halisneen markaas waan soo baxay dhahday marka ani nafteyda aan ogaaday in aan waxba qabin waxaan is dhahay dhahday ninkaaga wato wax qabaaya asigana fiiri xaalkiisa sidoo noqon karo waa soo baxay dhahday guriga imaaday ninkayga la hadlay waxaan dhahday adigoo ogeena aan dhaqtar aaday waan is soo baaray marka saas darteed waxaa la ii soo sheegay in aan waxba qabin saas darteed adiga waa inaa is soo baartaa adigana is soo fiirsaa okay waxba kama qabi ninkayga wax wara igama diidan jirin dhahday okay waxba kama qabiyo dhahay waa uu soo baxay asigana sidoo kale waa la baaray saliim inuu yahay waxba uusan qabin aan soo ogaaday falxamdulillah waxay dhahday ilaahay subxaanahu wa ta'ala iska sugeynaa marka maadaama anigana waxba aan qabin ninkaygana uusan waxba qabin ilaahay subxaanahu wa ta'ala xagiisa ay wax walba ka xayiran yihiin ilaahay maalintoo dhaho nacam uu dhaho uurkana aan qaaday balse waxaan ahay dhahday qof aad u jecel ubadka sanadaa kasoo wareegatay dhahday markaan waxaa igtiaaba ay imaaday dhahday in aan isla hadlo aan dhaho allahumma musta'an maxaa uur u qaad la'dahay maxaa ka qaldan waaya uur u qaad la'dahay markaan hooyooyinka dhalinaya heer waxaa dareemay dhahday aan xaqdi xasidnimo oo ina xasidnimadeynaya aan dareemo oo qoftaanba cunug way dhashee ma ka fiican tahay maxaa ada lagu siin laayahay yacni qadarta ilaahay dhan aan meesha ka saaray dhahday ilaahay subxaana wa tacaala in wax walba uu qoro dhan aan meesha ka saaray ilaahay subxaana wa tacaala gabdho wada siina wiilal wada siina ma dhalayso dadka ka dhiga allah subxaana wa tacaala wax walba qadartiisa allahu akbar فسبحان الله وحي دهدي إنا حاسد نمدي عنقي مركا كقبناي أنا دان عيل أسمع عنو فرحدي قبل يكون فرح سنة إني أوبد كأيد لسه وحدان بمي يقف كلام نقضي وحي دهدي واسعنا أنا دان قفتان بوالسي قفتان ويدل وسا قفتان ما شاء الله واك واهيستا قفتان واكنا ودلين وسا إن عنده أذيجي محل وسين لا أي هي وحاس أصل هذا المركي كلو حي دهدي وحا يقول عادي حالة اكتئاب ها يقول عادي أو حالة أدو oo xaalad nafsiya cuqdad nafsiya ugu dhacay cuqdad nafsigana cudurada ugu xun waaye hadaan la iska daaweynin waxyaabo badan oo ku sababa in aad samaysid waxyaabo badan oo sababteeda noqona in aad gashid in aad gashid in mujrimad aad noqotid wax walba oo ku sababa cuqdad nafsiga waa cudur aad u xun qof walbo qaban allah subhanahu wa ta'ala haka dul qaado qofkii qabo is og dhaqtar ha iska aado cudur aad u xun waaye fa waxa dhacday in aan ku fikiro in aan cunug xado maalmaha kamid ah markaan dhameeyay dhahda shaqadii markaan dhameeyay qolka ilmaha la sugu keeno marka ilmaha la dhaliyo qolkiya galay waan fiiriyay dhahday misna waxaan soo qaatay cunug aad u qurux badanaayay dhahday waa soo qaatay cunugii soo qaatay markaa soo qaatay gurigii markaa keestay runtii ninkayga markuu arkay wuu yaabay wuxuu dhahay cunugan inta ka keentay cunugan waxaan dhahay runtaa u sheegay dhahday isbitaalka ka soo qaatay cunug islaameed see isbitaalka ugu soo qaadanaysaa cunugan celi ma celinayaan dhahay cunugan waa haysana anaana korsanayo mana celinayo ninkaygu wuu igu xanaaqay dhahday cunugan waa inaa celisaa ilaahay subxaana wa tacaala ma taqaanid miyaa qof sidee cunug hooyihiisa ugu soo wadanaysaa ilaahay hadduu kugu talagalo ilmo wuu ku siinaya hadduu kugu talagalina magu siinayo sideena ku sabreynaa maalintuu ilaahay subxaana wa tacaala noogu talagalan waa dhalaynaaye cunugan ma geynaya haddaa ijeceshaa cunugan waa inaa igu haysataa wuxuu dhahday askara ku balaqa askara kugu sheega wuu baxay dhahday ninkayga qolkoo galay xoogaa markuu ku maqnaay uu soo baxay idhageysoo dhahay askarna kuuma sheegay cunugan haddaadan celinayn waa ku furaa markaasaa waxaan dhahday oo cunugan waa celina ma ifuraysid miya haddaa celiyo ma ifuraysaa haddaa haystan ma ifuraysid miya waa ifuraysaa miya haa ma celinaaye ifur haddaa ifuraysid sidii ninkii uu ku furay allahu mustacaan cunugii wuu xanuunsaday 2 bilood markuu jiray cunugii qandho aan degayna kusoo booday qandhadii inta daawo walba u soo gaday wax walba u soo gaday dhahday abadan qandhadii kama degaysa heer jirkiisa oo yellow isku bedelo jaalo isku bedelo oo gaar qandho darteeda
marka kale way ku adkaatay inay guriga kusii haysato way soo waday waxay keentay isbitaal keentay isbitaalkii markay keentay isla markii waa laga qaaday waxaa la geliyay qolka oo maxaradaasi baaritaanka qolka koomada loo gudbiyay doctorkii uu imaaday wuxuu dhahay macal asaf cunuga wuu dhintay ilaahay ha u naxariisto cunuga soo ku dhiman karaa soo ku dhintay markaas wuxuu dhahay doctorka cunugan waxaa lagu dhalay qalbi xanuun wuxuuna u baahnaa marka saas loo dhalay operation u baahnaa marka saas darteeda operationkaas muusan helin cudurkiina wuu ku weynaaday marka cudurkii waxa sabab u noqday inuu u dhinto marka waa kaasa cunuga uu dhintay markaas meeshii waxaan ku bilaabay dhahday isbitaalka dhexdiisa inaan is ilaawo qaylo aniga waan soo xaday sidoo ku dhiman karaa inta ka dhac 2 bilood ila noola waxay markaas isbitaalkii oo dhan laga ogaaday gabadhan inay soo xaday cunuga oo asalkiisa ay soo xaday subhanallah askara loo wacay askartii markii loo wacay waxay dhahday qof walba doctoradii naxariista badnaay oo dadka dhan ay jeclaayeen ma noqonay dhahday qof walba wuxuu igu indho oo aad xunu igu soo fiirina joornaalada magaalada dhan la igu qoray doctoradii tuuga isku bedeshay دكتوردي توغا نقطي waxay dhahday xaaladeyda aaday u adkaatay dhahday xabsiya la ugu xukumay دكتوردي ahayd maxayradaasi oo mawhibada lahayd oo aad u jeclayd in ay dadka dhaliso ilmaha la ciyaarto maanta xabsi ay dhex fadhidaa ay dhahday xabsigan waxa ay dhex fariisiyay iimaan daradeeday dhahday in rabbigayga aan ku kalsoonaan waay hada rabbigay ugu kalsoonaan lahaa maanta intaan igu ma dhici lahayn ay dhahday hada ninkayga warkiisa aan maqli lahaa maanta intaan igu ma dhici lahayn ay dhahday cunugiina gacanteedu ku sababsaday dhahday waxa laga yaabaa hooyadiisa aabihiisa inay ogaayeen cunugaas in qalbiga laga haayo ama wadnaha laga haayo in operation ay ku sameyn lahaayeen laakiin ani ma ogeynay dhahday maana ogaanin dhaqtarna ma geeyno guriga ku haystay dhahday marka cunugiina wuxuu sabab u noqday inuu gacanteedu ku dhinto cunugiina ma haysti ku aan dhalina ma haystay dhahday ninkayga ma haysti cunug kalena ma haystay dhahday sabab u noqday inuu dhinto marka gabar walbo oo waxay dhahday ubad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka soo daahiyay nafteeda ha sabto doctor nafsi ha aado doctor ha la fariisato waxay dhahday wax dadaal ay sameyn kartaa ha sameeyso saasay taan waxaan dadaal sameeynin ma lahayn dhahday wax walba xataa ukumaday kubciyaan leedahay waa soo gadanayay dhahday fitamiinaad waxaan dhaafay ma jirto balse qadarta ilaahay ku maqnaayeen dhahday marka gabar walba qadar ku dhacday dhahday qadarteeda ha ku qanacdo sida ani ugu dhacday kale ay kugu dhici doontaa qadartaada ku qanac alxamdulillah maanta meeshan taaganahayna fiiriyay dhahday ninna ma haysti shaqo ma haysti cunug ma haysti anigoo wax bartay xabsiya dhex jooga waliba dadkii oo dhan adduunka ay ii neceb yihiin dhahday doctoradii shalay oo lagu faana jiray ma ihi maanta doctoradii tuuga ahayd la leeyahay ilmaha xadi jirtay waxa la igaga dhigay dhahdeen ilmo walba aan xadi jiray marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadartiisa ku qanca wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinkeena raali ku noqda walaashiino doctoro oo idin ka soo hadlaysa xabsiga dhexdiisa dhahday oo idin leh qisadeeda wax ku qaata qisada waa qisa cajiib ah qisadan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku wax ku fahmaha naga dhigo mar walba Allah subxaanahu wa ta'ala ama awaamirtiisa jiir gelisid wata ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka jaraa wato ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku imtixaama qadar walba waa ina alxamdulillah dhahna aan ku qanacna ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar walba marka uu mahad celino qadar walba aan ku qanacno aan dhahno rabbi aan keenay alxamdulillah ilaahay wato naga qaada culayska in qafiif noogu bedela inna macal usri yusra marka culays badan qafiifa ka dambe dhibaato walba aan martid mahma adduunyada ay deeqa ay kugu noqoto ay ku ciriiri kugu noqoto rabbiyo hada dhahad ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax walba uu ku furfura ubadna uu ku siina insha Allah ta'ala gabar walba ubad haysanin ducadaha badiso ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha isku xirto markaas bishaarayso insha Allah ta'ala waxa ku qanacdido ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhabtaada saari doona biidnillahi alkareem biidnillahi alwaahid alahad إن شاء الله تعالى أدون كان وح إن أسمينه ما يستاهلوا إن أبض حدنا إن قف dhibaateyno wallahi adduunkan ma istaahilaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku wanaag isku faro xumaanta iska reebaha naga dhigo walaashin Jawhar Xuseen oo idin la kusoo dhawaada channelkeena subscribe saara asxaabtiin la wadaag wixii ay yihiin comment noogu reeb like tana dhiirgelina ay tahay like noo saara insha Allah khayr caafimaad iyo barwaaqo darajana assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh